macallin kastoo doonayso oo isleedahay waxbuu ku bari karaya ayuu inta kuu soo diro ayuu ku hawlgelinaya markaas wuxuu ku keenayaa dhowr boqol oo bog oo wixii aad doonaysay inaad ka gungaadhaad barinaysay ayuu halka kuu soo dhigaya markaasaad ku leedahay waxaan rabaa in aad iigu dhigto hab fakaanama inaan ahay qof secondary dhiganayo kale ama qof middle school dhiganayo dugsi hoose dhiganaya fahankiisii inaad iigu siiso oo cilmigan aad igu barto markaasaad ku leedahay weliba iisoo koobo iisoo khulaasee oo 30 bog ilaa 40 bog iga dhig markaasaad weliba waxaad leedahay ii akhri baad leedahay ibar adigoo gaarigaaga wata ayaad jaamacad ku jirtaa adigoo gurigaaga joogaad jaamacad ku jirtaa adigoo jiimka ku jira ayaad jaamacad ku jirtaa gabadhu iyadoo weelkeeda dhaqanaysa oo jikadeeda ku jirta ayaa jaamacad ku jirtaa waqtigeenu nool lahay subxaan allah yani waqti waxa weeye khayaalkeena ka baxsano bini aadamka aanay 10 sano kahor aanay suuraysan karin laakiin maanta waqtigaasaan nool lahay laakiin waay baynu haddana uga faa'iidaysan lahayn waqti si kala dhanka marka la eego haddii waqtigan uu yahay waqtiga sida unique oo ee chatgoniga oo ee wax badan aynu ku qaban kareyno dhanka kale markaana eegto waqti waxa weeye aad destructive ah waqti jeediyaashiisa aad u badan yihiin dhibqiyaashu ay aad u badan yihiin waqti waxaynu noolnahay la tilmaamo 3 calaamadood oo la yaaba oo hore aan sidoo kale u jirin leh oo ay tahay inaynu ku baraarno haddaynu doonayno inaynu ka faa'iidaysano iyo haddaynu doonayno inaynu iska ilaalino ila nolosha waxaad iska ilaalinayso iyo waxaad isku ilaalinayso wax walba waa midi laba af la weey maxaad isku ilaalinaysaa marka inaynu ogaano simaadka waqtigan maanta uu leeyahay waxa kamid ayu alxiba waqti speed ku socda waa waqti degdegaya shalay bay ahayd January koodeeda maanta way dhamaatay shalay bay ahayd markii la 17 ka dhiman Ramadaan maantana way dhamaatay waqti waxaynu nool nahay si nabi sallallahu alayhi wasallam tilmaamaya min calaamati saaca kamida in bishu ay toddobaad noqonayso toddobaadku maalin noqonayo maalintuna saacad iska noqonayso waqtigaas aynu nool nahay dhinac uu inaga hor imanayaa waa speed buu ku socdaa waynu ku baraarugsannahay waqtigaas siduu u goynayo inoo goynayo ya waqti waxa weeye ay speed ku socdaan waqtigu speed ku socdo wacaalkii xogta ay speed ku socdaan maanta waxa la saadaalinayaa in gelin kasta aqoontii horay dunida u jirtay min nabilaahi aadam ilaa maanta berri aqoonta la soo saari doono ayaa kulli jibaarmaysa min nabilaahi aadam calayhi salaam ilaa maanta aqoontii tahlay gelin gudihiisa berrooda waxay lahaayeen saddexdii biloodba mar kale waxay yidhahdeen wiigii mar maanta waxaa la marayaa gelinkiiba mar in aqoontu ay iscusboonaysiinayso ee ay maanta waxaa leeyahay saddexdii biloodba mar ayuu wixii uu horay u sameeyey oo dhan ayuu dib haddana usoo samayn karaya isku cusboonaysiinaya marka waxay xilli ay tahay in lala jaan qaado isbeddelkan iyo maaragtay xawaaraan informationku ay ku socdaan marka waqtigii baa degdegaya oo speed ku socda informationkii iyo wacaalkii iyo xogtii baa degdegaysa oo xoog ku socota isbeddelada dhacayana xoog bay ku socdaan idan marka waa inaynu garan karayno sidaynu uga faa'iidaysanayno sidoo kale waqtigan waxyaabuhu la yaab ku leeyahay zamankan waxaa ka mid ah inay endless choices kala doorashooyin aad u tiro badan oo xad lahayn inay maanta ay jiraan ilaa maanta bugaag laga qorayo the paradox of maaragtay choice yani qofku wuxuu haystaa maanta options aad u tiro badan oo keeni karaysa inuu maalinba meel ku boodo because options maanta aad bay u badan yihiin qofku marka uu leeyahay hal shaqo oo shaqada uu yaqaano sida loo qabto shaqadaasuu maalin walba ka gungaaraya marka uu haysto fikrad uu wax badan ka fikiraya fikradaasuu waqti gelinaya focus iyo diirad saar uu yeelan karaya maanta laakiin suurtagal ma aha focuskeeni iyo diirad saaryadiina maanta weerar lagu yahay oo aaladahan kala duwan iyo social media iyo teknolojiyadda iyo internetku maanta ay ku tahay bahalki ولذلك maanta opinions ka aad u fara badan yihiin maanta internetka markaad gasho cid waliba waa hadlaysaa kumanaan kuna wadaad baa hadlaya kumanaan kuna aqoon-yahan hadlaya maanta hadaad rabtid inaad sida miisaanka la isaga dhimo 100 nooc iyo kumanaan kuna muuqaal baa ka hor imanaya ku dhiga barjeenaya aad ula yaabayso waqti marka waxaynu u baahannahay ay tahay inaan ogaano way waqtigeenu ku nool nahay si aad u ogaatid min calaamad maxuu nidhi qofka waaciga ee xakiimka waa inuu ku baraarugsan yahay dabaa'icda ashyaada zamankaynu ku nool nahay waa inuu naqaano saad isaga ilaalin karayso isuguna ilaalin karayso marka waa waqti choiceskan faraha badan maanta aynu leenahay waxay keenaysaa in consistency-gaagu uu yaraado maalin halkan aad ku boodi maalin track baad kori maalin center kale halkan ka furi maalin mashruuc kale halkan ku boodi
maalin afrika aad u ordiyo guryo laga samayn baa tegi maalin ma meel qofka bini aadamkuna mashruuc kasta uu qabanayo wuxuu uga baahan yahay waqti inuu geliyo waa juhdi productivity-ga wax kale maaha waa time-ka aad geliso iyo focuska intensity-ga intense siduu u yahay focuskii diirad saaryada aad gelinayso maanta heer waxaynu nool nahay waqti la leeyahay talentiga iyo hibada iyo qofka uu leeyahay waxaa ka muhiimsan focus diirad saaryo ma yeelan karaya meel ma fadhiisan karaya 30 daqiiqo quraan haddaad doonaysa inaad xifdiso haddaad doonaysa mashruuc business inaad ka shaqayso haddaad doonaysa kitaab inaad qorto wax kastoo wanaagsan oo weyn oo muhiima oo doonaysa maanta inaad qabato waxay kaaga baahan tahay intaad meel fadhiisato qol isku soo xidho keligaa 30 daqiiqo saacad 2 saacadood inaad fadhido oo maalmo aad soo celceliso bila aad soo celceliso wixii aad uga gungaadho laakiin optionska faraha badan inay haysano iyo maanta waqtiga aynu ku jirno iyo speedka iyo xawliga socda ayaa wuxuu keenayaa distraction fara badan buu abuuraya oo dirasaarayna uu yareynaya calaamada saddexaad uu leeyahay maxay noise iyo buuq sawaxanka maanta aad u fara badan yahay pollutionka codeed midka iftiimeed midka information darbiyada ku dhagan maanta qofka caadiga ah 200 ilaa 300 oo video baa laga yaabaa maalinkii inuu eego mana oga saacad sidan buu leeyahay fur buu odhanayaa kan buu ku dhufanayaa scroll tiktok uu galayaa siduu sidaa ugu hayo wuxuu arkay iyadoo saacad ka tagtay 30 video buu daawaday waxna kama hayo mid walba markuu dhageysanay waxa laga madaxa inuu ruuxay kuwa xunna waa isdhaafinayay intaasoo video macno leh ay bini aadamka maskaxdiisa ilaahay siduu inoo abuur la inooguma talagelin information fara badan maskaxdeena qaado maskaxdeenu ma aha bakhaar ma aha weliba xasuusteena dhow ee la yidhaahdo prefrontal cortex-ka halkan qaybtani xasuusta dhow boqol waxay qaadaa baa la yidhaahdaa 7 xidhmo oo wacaal ay qaadaa markaa 7 xidhmo oo wacaalo noloshaada muhiima aad soo qaadato oo aadan iska xidhin oo aadan rogrogin fikraddaa rogrogin oo aadan ku celcelin oo aadan qorin oo aadan u gudbin xasuusta fog oo hadhow dee raandiiska meesha ka imanaysaa inaad hadhow xasuusan karaysa dee macluumaadkii hadda maanta waxaa laga yaabaa maqrib iyo cishaynu ku dhex jirnaa saaka inteenan dhowr qof marka laga reebo waxaa laga yaabaa inaynu tiktok galnay facebook inaynu galnay intaasoo video inaynu galnay haddaan hadda yidhaahdo 200 video ama 30 video ugu dambeeya daawatay wax ma ka haysaa qofka wax kama xasuusto hadda waqtigaagii baa ku socda eeg waqti kaliya kaama qaadan tamar buu kaa qaatay inagu tamarteenu waa aad bay u kooban tahay hurdada yaraynu seexano cuntada yaraynu cunno nasiinada yaraynu helno cilaaqaadka iyo dadka ehelkeena iyo carruurteena aan jecelnahay iyo asxaabtaan aan jecelnahay tamartii iyo energy-gii aan socially ka helnay taasaynu haysanaa iyo ruuxdeena markaynu quudino adkaarta iyo deganaanta iyo xasiloonidii aynu ka helayna iyo salaada iyo khushuuca tamarteenu haysana waa tamarta bini aadamku haysana waa finite waa wax kooban waa wax dhammaanaya weeyaan ma wax infinite oo dhammaanayn ma waa sida telefoonkaaga marka aad habeenkii soo kacdo dabayso oo tibicii soo kacdo iligadiisi way buuxaan soo ma markaad ku hadasho wax ku daawato maxaa dhacaya dabkii wuu sii nusqaamaya markuu nusqaamo waxaa baahanta inaad dabaysada baahanta inagu marka internetkan iyo social media aynu ku jirno keliya ma qaadanayo energy-gan iyo tamarteeni sidoo kale waqtigeeni buu qaadanaya waqtina waa kaa qaatay labadii waxa kugu muhiimsan waa maxay waa tamar iyo waqti bini aadamku labadu wax ku yaaba ka ilbaxnimaduna halkaas ku jirta waa tamar iyo alwaqti malik nabi markuu tilmaamay ilbaxnimadu wuxuu yiri waa qof dad iyo ciid iyo alwaqti ilbaxnimadu saddexaas ka samaysata wax kastoo tiknoolajiyada laga sameeyay ciidda laga sameeyaa halkaas ka samaysata iyo dad tayeysmay oo wax bartay oo garaadkooda kobciyay oo xirfadahooda tayeeyay oo is horumariyay iyo alwaqti idan marka maanta tamartaadii energy-geeda wax ku qabsan lahayd iyo waqtigeeda wax ku qaban lahayd labadaba social media maanta u gubaya waxaana cajiib waxa weeye maanta systemka sidoo u samaysan yahay u design garaysan yahay social media waxa weeye waa dabin aanu qofku ka bixi karin oo maanta daraasaadka iyo dadka ka warrama ay leeyihiin isku day maalin walba inaad log out aad ku samayso internetkaaga oo aad engine-kaaga wixii uu hayo dhan aad delete ku samayso sababtu waa maxay because adigii buu qabanaya wax kasta ku dul hakato uu qabanaya ama muuqaal ha noqdo ama musawir ha noqdo ama kood meel ku qoran ha noqdo ama post ha noqdo wax kasta oo ku dul hakato wuxuu garanayaa
ma second maad ku dul hakatay mise daqiiqad baad ku dul hakatay mise labaad ku dul hakatay si markaa uu biri kugu register gareeyo social facebookaaga ma rumaysan facebook nafteena naga yaqaan wuxuu garanayaa waxa jeceshan maanta haddaan idin idhaahdo muuqaaladii maanta aad ku dul hakatay ma taqaanaa muuqaaladii maanta aad ku dul hakatay kuwii aad ilbiriqsiga dul istaagtay iyo kuwii aad 5 daqiiqo dul istaagtay iyo kuwii aad 2 daqiiqo dul istaagtay ma garanaysaa yaa garanaya facebook uu garanaya tiktok uu garanaya waa lagu kaydiyaa adiga dhan aroon inaad daawateen waxaa jira documentary netflix ku jira oo la yidhaahdo the social dilemma haddaad daawataan sida loo qaabeeyey AI-da iyo algorithmka loo sameeyey haddaad daawataan social media waxaa ku qabanaysaa inaad iska xidho oo aadan gelin waayo hab inuu ina yeesho waayo de attentionkeena maanta waa markii ugu horreysay bini aadamka attentionka iyo dhugmada bini aadamka laga ganacsado hore uma soo marin bini aadamka intuu noolaa ma soo marin in attentionkiisa laga ganacsado shirkadkan waaweyn aad aragteen billions of dollars ka ah Instagram iyo TikTok iyo wayba maanta loo iibsanaya shirkadka waaweyn bari dhexdeeda wiil yar u dhashay ninka Facebook iska leh 9 milyan miya oo lacag ayaa la igu donate garay mudiirka hadana 90% ma yiraahdeen mudiirka dadana billionaire buu ahaa lacagta xagee laga keenay because shirkadkii waaweynay oo dhan ee TV-yada xayisiinta marin jiray ayaa halkan la keenay waxa la yiri attention baan idin haynaa dadkan halkan aan idinku haynaa waxa aad doonaysaan ka dhaadhiciya waxa aad doonaysaan ka iibiya soo dukaamadii oo dhan meheradii oo dhan waa loo soo raray maanta internetka marka waqti waxay noolahay sidaa u khatar ah oo attention-keeni laga ganacsanayo oo ay taf tahay aad u adag tahay qofku inuu ka baxsado idan marka inuu qofku iska maareeyo oo ka baxo waqtiga social media maanta average waxa la yiraahdaa qofka waxa ka gala 2 saacadood iyo badh waa celcelis dadka qaar buu 5 saacadood ka gala 6 saacadood ka gala 7 saacadood ka gala laakiin celcelis marka la isku celceliyo qofka 2 saacadood iyo badh baa ka gasha waqtiga social media 2 saacadood iyo badh waxaad u malaynaysaa qofku inuu ku qaban karayo hadda waxaynu ka sheekeynaynay productivity iyo qofku inuu wax qaban karayo wax soo saar yeelan karayo inaynu noolahay waqti aan hore u soo marin bani aadamka inuu qofku yani wuxuu doono uu maanta ku gaari karayo isagoo qolkiisa iska jooga aalad yar oo jeebka ugu jirta uu qaban karayo laakiin distraction-kan awgii ayaan waxaynu niri maanta marar fara badan waxay tahay in qofku iska jiro social media 2 saacadood iyo badhka uu inaga qaato mar baan xisaabiyey aan eegay kitaabka mucayanka maanta kitaab yar oo caadi ah oo kutubta masmuuca ama kutubteeni maanta culimadeeni waqti faa'iidadu leeyahay bay kamid tahay teknolojiyada ay leedahay culimadeeni kutubtii ay qoreen oo dhan ibn qayyim maanta kutubtiisii waxaad ka wadaynaysaa iyagoo masmuuca oo dhageysan karay ayaa youtube-ka ka heli karaysaa jeebkaad gashanaysaa jimkaaga doo ku jiraad ku dhageysan karaysaa kutubtu average waa 3 saacadood ilaa 5 saacadood ilaa 6 saacadood celcelis inta ay maaragtay ay soconayaan kitaab dhan aad akhriso oo dhamaysa weeyaan maxay niri facebooka iyo social media average qofku waxa ka gala maalinkii 2 saacadood iyo badh 2 saacadood iyo badh 7 maalmood ku dhufo oo meeqo 17 saacadood meelaha ayay noqonaysaa toddobaadkii bishii maxay noqonaysaa 68 saacadood buu noqonayaa sanadkiina wuxuu noqonayaa 800 iyo 40 iyo dhowr saacadood buu noqonayaa let's say kitaabku marka uu yahay 4 saacadood 5 saacadood 6 saacadood oo ku dhageysan karayo qofku bimacnaa haddii toddobaadkii wiigii 17 saacadood uu social media naga geliyo waa average hadda ogaada dad baa ka badan baa isticmaalayaan average celcelis 2 saacadood iyo badh 17 saacadood way toddobaadkii 17 saacadood qofku muxuu ku akhri karayaa kitaab sheekh al-islam ibn taymiyyah leeyahay oo masmuuca kitaab sheekh ibn baaz leeyahay kitaab productivity ka hadlaya iyo habits ka warramaya kitaab culuum muayyan oo psychology ka warramaya ama doonaysa inaad horumariso kitaab ka hadlaya sida wax u baran lahayd ayaad soo qaadatay dhageysi baad ku soo qaadatay qofku wuxuu akhriyi karayaa toddobaadkii 3 buug buu akhriyi karaa dhageysan karayaa isagoo jimkiisa ku jira isagoo lugeynaya isagoo gaadhigiisa saaran 3 buug ayuu ku dhammayn karayaa toddobaadkii bishii wuxuu dhammayn karayaa 11 buug sanadkii wuxuu akhriyi karayaa 100 buug buu akhriyi karayaa yani
والله بس قف منكم ما تكون يرادو ما قد سنة كنا آخر سنة أتكون ترادو والله لا أفرت ما يبوك ما آخر يوم بدأ حمد حصار تاني عكرس واحد بدنا ما واسك صدام دقيقة بقول قف أفرتنا آخرنا كتاب القرآن كفير كتاب القرآن بيقول كوبية هاي وقتنا إن شاء الله عليه شاقو صلاة دين تقريبا حكري مثلا ها أوكي سوق بجيبين إن شاء الله عبد الرحمن كتاب القرآن قفكو قدام صوكوبه كدواد أفرتن يسدد شربو لبضع ساعات يبركا سوشيال ميديا نجلا هدو قفكو قاطو أفرتن يسدد شرب القرآن كختم كرسا سندك لبضع ساعات يبركي حسابتنا وتكونوا فن كرسا وهي جزء وحلقة آخرية صدق دقيقة ساعات واحد آخرية كرسا لبى جزء تضبي 8 ساعات تضبات كي وجه لحدنا يسدد ساعات بشي وجه بحين قريسا قفكو آخرية كريا أفرتن يسدد ساعات أفرتن يسدد جزء شربو قرآن كختم كريا سندك وحصل واحد أيها الحبة أو تلمامية أنا سلاي أدنى إنه ما ركتي إنه قصة كريا أو يقفكو إنه وقتها سنة الأيام كوله أيه كنا والله أي واحد بدنا إنه قفة إذا سكرنا أن سوينا وقت جينا عمر جينا يتمرتين أدري كريا وحنو بعنا هاي إن اللبار الماض وأخيرا هذيك جت لي أنا سلاي مهم قفكو إنه يشوا وقتي وكلي تو فريستو مالنكي أما صبحي هالنقطة أما قلبك هالنقطة أنت وفريستو إنه نفسي حسابية بالي نقول الماء حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا تدمر فريستو نفترض إن حسابيسو إن تكده بحضر السوشيال ميديا ديستركشن كسياسة ده بحضر كل كان مال فريستو 8 دقيقة 20 دقيقة 5 دقيقة مال فريستو وحسكوا يديسون الله شهادة أدو تاير كان وريجي جرانتن أرديسة مياد سجد حجرته محاد ما أنت قبضتي عود كاجد وحسك ويديسو عمل كاجد وحسك ويديسو عافيمات كاجد وحسك ويديسو عبادة هذا وحسك ويديسو عائلة هذه عروت هذا إن تكور حيسو أبد كاجا مدول بباهدي سجار كعله إن وحسك ويديسو إن عبادات كاجد وحسك ويديسو تلو ميان هرم مري ميانك إذا مو أم هرم وصعدا أم قدال بوصعدا إن نفتنا الظاهرين تيجي هالكاس كوجتا ونا قدر دارته وقدر إلى سبحانه وتعالى القرآن كل دارنا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها صوت معولية هي يسوقوا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قفك حضانو كلجي فريسان مال 5 دقيقة أما 8 دقيقة عنو فريسان نفتنا إذا ما ظاهرين كريم مو وناشين كريم وايو ساسا وصعنا مالك يوم سيد الروبات كي أيام ربط كيو كلا أيام مالك وصعنا ورا معنا وين وبريا كمان إلى النا سوقين وقلنا ما تدون وين صورنا هبين كي ما درس كلنا هدنا وين وكعنا محيبات كوسا كله محاد قبضتي محاد سميسي محا عبادات كايو كله محا عمل كايو كله محا علم كايو كله محاد هرم مرستي محاد صدقيستي صلاة هذه مرة أنت تيشري قفك إنه يسويديو وضمدنا قفك واحد سمعية قفك استو برودكتيف علاقة كذا حيسة وحلي هذا قفك إنه مال فريستو أو ما من نبي عائشة رضي الله عنها هذا ما من نبي إلا وأمر بالتحنث التحنث كوامح قفك إنه خلوه مال كلي فريستو عزلة كلي أنتم ماله بحمالك ويسويديو سؤال نلوشي إسكويديو نبي صلى الله عليه وسلم قرنا يسار سو قارو الحرا صارا ماشى دارتين بورتي انتي نكرتي واد قرنا يسار كدواد افرت دقيقه ساعات بات سي كوريسا halkaas nabiga sallallahu alayhi wasallam fariisan jiray oo uu naftiisa ku xisaabin jiray walidaalika uu ku noqday qofka uu noqday salawaatu rabbi salaamu alayhi ya inaad ka dhaxbaxdo marka bulshada aad kaliya meeltaad fadhiisato su'aalaha aad isweydiiso aad baad u muhiimsan tahay oo aadan cudur daaran inuu inta badan markaynu wax inaga yar wax ismaan waynu cudur daarana bil saasay ahayd salaadi saana biriyaan xaaladan baa jirta arurtaadii maaragtay biriyaan waxa uga mashquushay cudur daaran qofka bini aadamku is garanaya bal insaanu ala nafsihi basira walaw alqa ma'adira inaad isweydiiso tiraado maalin baa imanaysa hada yawm la yantiqun wala yu'danu lahum fayactadirun maalin cudur daar lagu ogolayn ودين عذر دارين إن تحسستو يسويديسو تراضو ما أنت وحسك ويدينيا عود كيجا يا عمل كيجا يا عافيمات كيجا يا عائلة دايدة يوتي علمي كل وحبة لقى ويدينيا وتنو حديث صوت المعلمني انقفكوا أنا قمديسو أنا كده خاقين ربي هرتي سمعني تقيامه إلا سؤالها لويديو بكينا تسويديسو أخيرا يا الأحبة حنا نجيت يا تقوى ربي سبحانه وتعالى تقوى وحكمت هاي سيرو
aad u kooban baan inta badan uga warranaa laakiin taqwadu aad bay cajiib u tahay taqwadu waxa weeye sidii markii Umar ibn Khattab radiyallahu anhu weydiiyey waatii uu yiri suurayso saxaabiga tuu ku yiri suurayso marka aad kaynu baxdo qodaxdeedu aad u fara badan tahay maxaad samaysaa waxaad samaynaysaa maradaad kor u qaadanaysaa waxaad iska ilaalinaysaa lugtaada meesha dhigayso si aanay maradaadu u jeexmin qodaxna aanay ku darin soma wax la yiraahdo bini aadamka horumarkiisa iyo wax soo saarkiisa iyo tayadiisa iyo hankan aynu ka waramayno iyo meesha aynu doonayno inuu gaadho is xisaabintani kulli waxay ku timaadaa muraqabatu nafs inay fakaanama marka maanta aad gasho meel light kamarad ay ku xiran tahay CCTV camera ay ku xiran tahay maxaad samaysaa waa is ururisaa meeshaan ku xidhino bay is ururisid fakaanama rabbi inuu sidaa ku daawanayo rabbina ka dhowrsanaato ka xishooto waxa weyn baa lagu helaa oo baraka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waqtigaaga iyo amalkaaga iyo coodkaaga iyo caafimaadkaaga kulli uu gelinayo walidaalka Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraan ku leeyahay walaw anna ahla alqura aamanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-sama hadii dadku ay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhowrsan lahaayeen oo Ilaahay ka xishoon lahaayeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu furi lahaa barakaadkiisa sidoo kale ayuu la barakadu waa waxyaabaha qofka bini aadamka geliya taqwadu iyo alla ka dhowrsanaantu waa waxyaabaha qofka geliya baraka geliya ilmigiisa waqtigiisa waa sidoo kale zunuubta iyo xumaha oo qofku aanu u aabayeelina waa waxyaabaha qofka burburiya intellectigiisa kartidiisa garaadkiisa tamartiisa maalkiisa ilmigiisa wuxuu dhan buu burburiyaa إلهي سبحانه وتعالى مركز كحشوت وكدور صلاته إلهي سبحانه وتعالى وحوت كوسينيا إن جودها عاد أقام ويالته نفتي إنه مرفرة بدل بني آدم كعاد ضعيف وياه بني آدم كضعيف وياه واحد بدل نفتي إنه كمان نقامه وتادم تلمام يعني واحد شعشة واحد نعبتها وحلقيها وإنه تبارك عياله فيسبوك عياله قشي إنه كان بديه نفتي إنه من نقامه إلهي سبحانه وتعالى وحوت الماما يا وليه هي يعلم السر وأخفى إلهي وحقرنا يا واحد سرت كوه يا رب وحسرت يا وانا قانا وحوينا دتك أوجين وحا أنا سرت يا لابتي ذي كوجرتا لكن وحا إيجا قرصون أنا وامح إلهي وحلي وحا سرت كوه أنا وانقرنا هنا وحا كا قرصون وانقرنا هنا ما تقدر سايكولوجيست وتكتور ترى عاجز ببرياني هيا واندقاق الله هاي حبوان قبل الله هاي بل إلهي حلقة باينتو وكعاوية كل شيء كيستو توش كولا قاضو قف سايكايترست markaad u tagto kula ifiyo ku yiraahdo halkan laga yaabo inay ka yar guntan tahay fikradan baa ka yar khaldan meelaha ku yar ifiyo laakiin ma gaari karayo guntada hoose ma gaari karayo waxa jira fikrado iyo dareemo iyo laxawiyo iyo guntan oo dululiga si hulan subconscious keena dhex fadhiya oo tan iyo yaraanteena nagu soo sameysmayay oo maanta wax badan oo qaban kari lahayn inaga hortagan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu garanaya ya'lamu sirra wa akhfa محمد قال ليه إلى سبحانه سورة آيات كل ياي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم إلهي هذا النفط هذا كله سيا وحول بقدر هذا إلهي اللي وده كدور سويده كعشون ويده إلهي ويده حفيد ويده أذن إلهي سبحانه وتعالى برا ويده أذن إلهي سبحانه وتعالى نفط هذا كقرنيا إذا مركز هذا أردي معلومة الواد وحبات قبل ما اللي جاري بعد جرن واي meelay hawlaha si qabsan laayeen baad garan waay ninba waxa la yiri wuxuu yiri ya rab aad baad dul qaad badan tahay inta waan ku caasiya laakiin ima ciqaabtid hali habeenka haatuf buu maqlay waxa lagu yiri cad buu maqlay oo leh imisaan ku ciqaabay laakiin aadan ogey imisaan ku ciqaabay laakiin aadan ogey yani qofka ma taxta inuu garan waayo meel laga gaaray maxaa keenay wacyi male مراقبة النفس ما جرت مراقبة النفس إن محاصل لقوة خشية الرب إلى الله سبحانه وتعالى تكبر سنة إلى سنكسو قبقبينها جزاكم الله خيرا إلى سبحانه وتعالى هنا قد من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن إن شاء الله السلام عليكم